gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa kulamo gaar ah kula qaatay qaar ka mid ah gudiyada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka. gudiyada oo maanta gudoomiyaha golaha shacabka la kulmay waxaa ka mid ah gudiyada maaliyadda, arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka, waxaana gudi walba uu ka wareysanayay howlaha uu qabto iyo qorshayaasha hadda u degsan. sidoo kale gudiyadan ayaa gudoomiyaha u soo bandhigay qorshe howleedkooda. dhinaca kale Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa isla xarunta Villa Hargeysa kulan kula qaatay madax ka socotay hay'adda Max Plan oo ka mid ah hay'adaha taageera baarlamaanka dalka, waxayna kala saxiixdeen heshiis wada shaqeyneed oo dhexmara hay'addaasi iyo baarlamaanka dalka, sida warbaahinta qaranka uu sheegay Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo ah xogayaha guud ee golaha shacabka. gudoomiyaha golaha oo bariyahanba waday sida shaqada u bilaabay inuu gudiyada ula kulmo si ay isku bartaan isla markaana uu xogogaal ugu noqdo howlahoodu meesha ay marayaan oo uu ka dhageysto wixii uu qabsoomay iyo waxa uu qabsoomin, wixii aanu qabsoominna sabab uu qabsoomi waayeen iyadoo oo la raacayo qorshe howleedkii gudiga. marka taas ayuu maanta runtii aad u dhageystay 4 gudi 3 saac amal buu bilaabay, hadeerna waa dhameeyay. waxa kale oo iyadna jirtay in Max Plan hay'adda la yiraahdo oo la shaqaysa baarlamaanka lana soo shaqeynaysay baarlamaankii 9aad ilaa haddana la shaqeynaysay inay is afgarad 2 sano iyo dheeraada ay haddana kala saxiixdeen oo ay shaqadii halka uga sii wadi doonaan insha Allah. Ibrahim Gudle Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta Villa Hargeysa, magaalada Muqdisho.